kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa True Cable TV ku soo dhawaada wararkeena ciyaaraha guud ahaan wararka ciyaaraha waxaanu ku soo qaadan doonaa kulamadii shalay ciyaaro kuwa maanta la ciyaari doona iyo falanqeyn kooban oo ku eegi doono ciyaarta xiisaha badan ee dhexmar doonta labada xul qaran ee Iran iyo sidoo kale Portugiiska faahfaahinta ayaynu u guda gali doonaa insha Allah aanu ku bilownaa shalay waxa la ciyaaray saddex ciyaarood oo ka tirsan ciyaaraha koobka adduunka sida tooska uga soconaya wadanka Ruushka wadanka Ingiriiska ayaa 6 gool uga soo badiyay wadanka Panama oo hal gool kala calaabay garoonka sidoo kale ciyaar xiiso badan oo 6 maqribnimo dhexmartay labada wadan ee Japan iyo Senegal ayaa guud ahaan ku soo dhamaatay barasho 2-2 ah ciyaartii 9 fiidnimo dhexmartay wadamada Colombia iyo sidoo kale wadanka Poland Colombia ayaa 3 gool uga soo badisay wadanka Poland oo isagu wax balaan kala calaabay garoonka kulamada maanta la ciyaaray oo ah wareegii saddexaad oo si toos ah maanta loo bilaabo doono kana duwan qaabkii hore loo soo ciyaarayay ayaa maanta waxa wada ciyaari doona wadamada Sacuudiga iyo Masar iyo sidoo kale Ruushka iyo Uruguay hal mar ay soo wada dhici doontaa ciyaartaas oo ah waqtiga geeska Afrika markay tahay 5 galabnimo haddii aan la idmo ciyaarta sidoo kale 9 fiidnimo hal mar soo wada dhici doonta ayaa dhexmar doonta wadamada Iran iyo Portugiiska Spain iyo Morocco ayaa iyaguna wada ciyaari doona saacada geeska Afrika markay tahay 9 fiidnimo waqtiga geeska Afrika markana waxaan falanqeyn kooban ku sameyn doonaa ciyaarta xiisaha badan ee la wada sugayay ee 9 fiidnimo ee dhexmar doonta wadamada Portugiiska iyo wadanka Iran studio waxa hadda la fadhiya Mustafa Maxamed Cige oo ka tirsan kooxda dawladda hoose iyo sidoo kale xulka gobolka Maroodijeex Mustafa ayaan ku soo dhaweyn doonaa soo dhawo Mustafa aad baan u walaal Ahmed adiga dhamaan bahda True Cable TV Mustafa kulankan Iran iyo Portugiiska maxaa laga filanayaa hordhacooda horta waa kulan maanta xadidaya maanta meel dhigaya cidida group wareeg labaad ama 16 ku gudbi doonta marka horta ciyaartu aad iyo aad u adagtay koobka adduunka maanta koobkii hore ee naqaanay in badan xoog buu uga duwan yahay oo maanta waxaan mudaynaa kooxi yar iyo kooxi xulalkii aad ku waaweynaa aanay kala adkeynba marka anu waxaan leeyahay kastoon raayahan aan aaminsanahay inuu badin doono xulka qaranka Portugal haddana ciyaar adag oo aad u adag ayaa sugaysa Portugiiska inuu dhayal ugu gudbi doono 16 kan aniga ilamaha marka laga hadlayo kulankan muxuu ka duwanaan karaa kulamadii hore isla groupka markaynu ka eegna Iran iyo Portugiiska waxa la groupay Spain iyo Morocco wuxuu kaga duwan yahay horta maanta Iran iyo Portugiiska mid kastaba maanta waa dawo guultara kooxdii laga badiyaa toos ay koobka uga baxaysa marka wuxuu kaga duwan yahay maanta waa xadidaadii ama masiirkii koox kasta halkii u socotay ayuu xadidaya marka taas adayga iyo duwanaanshaha ciyaarihii hore keenaysa marka maanta cidna dhibic dambe xaraysa ama ciyaar dambe la sugaya ayaan jiri doon maanta koox kastaba waxay guul bay dhinkeeda u tafaxaydanaysa marka taas ay keenaysa inuu ka duwanaado wareegadii hore labaad iyo koowaad inuu ka duwanaado waa tahay ugu dambeyn su'aashan ku weydiinay waxa weeyaan haddii lagu raado saadaal natiijada ay ku dhamaanayso ciyaartan maxaad ku saadaalin lahayd ciyaartan dhexmarsa Iran iyo Portugiiska anu fikiraan waxaan ku saadaalin lahayd inay labiye ku dhamaanayso waa tahay labada yaqsiinsa labadaba horta xulka Portugal wuxuu la ciyaartay ayuu ku hirtaan oo hogaamiyo cid kale wax ka sugaana male waxa dhalin kara inta ugu badan Cristiano Ronaldo hogaamiyaha ugu horeeya xulka qaranka Portugal ay ku duulaan insha Allah marka waxaan sugnaa natiijadaas insha Allah ciyaartu bil sugnaa aad baad maasantahay adiga dhamaan bada True Cable TV guud ahaan waxaan intaas ugu soo xmeeri doonaa wararkeena iyo falanqeynta koobnayd oo aad ka daawanaysan True Cable TV kulan dambe haddii Allah awood leedma dhamaantiin waxaan idinku dhaafanaa tusan iyo nooli kulanti ku xidhnow mar walba kanaalka isboortiga ee True Cable TV